السلام عليكم soo dhawaad walaal maanta insha Allah waxaynu qaadan doonaa cashirkii ugu horeeyay ee aynu ku baran doono kooraskan JavaScript waxaynu ku baran doonaa haduu Eebbe subhanahu wa ta'ala idmo waa maxay marka hore syntax variables iyo sidoo kale data type intaan ayaan isku dul istaagi doonaa haduu Eebbe subhanahu wa ta'ala idmo marka koowaad aynu ku hormarno waa maxay syntax sida la socono waa shuruuc ama waa qaab qoraaleedka ay leedahay luqad kasta waxay leedahay qaab u qormato nidaam marka waxaynu fahmi doonaa luqadan aynu barahayno JavaScript qaab qoraaleedkeeda sida ay u qoranto sida u dhaqanto behaviorska ay leedahay sidoo kale waxaynu fahmi doonaa variables waxa la dhahaa waa weel lagu kaydsanayo xog waa container inoo kaydinayo data faa'iidadiisa waxaa ka mid ah reusable xogtaas aan kaydsaday inaan dib u isticmaali karo haddii aan xog meel ku kaydsado waxa ay suurto gelinayso isla xogtaas inaan hodhow reusable dib u isticmaali karo marka sidoo kale waxaa jiro noocyo kala duwan ee leedahay variableska cashirkan ayaan ku arki doonaa waa maxay data type sida u jeedinba waa noocyada ay leedahay daatada noocyada kala duwan ee daatada leedahay waxa ugu caansan string number float iyo sidoo kale boolean and so far intaas ku dheer waa jiraan balse commonly inta ugu caansan laga isticmaalo waa afartaas aan ku soo sheegay marka waxaynu fahmi doonaa intaan ayaan insha Allah taala si deep la isku baran doonaa waxaynu sii gudubili doonaa isla cashirkeena waxaynu ka bilaawi doonaa marka horeeto syntax waxaan soo dhahan waa qaab qoraaleedka ee leedahay luqadda JavaScript waxay u qorantaa JavaScript qaab qoraaleedkeeda waxaanu soo dhahnay markood waxaanu furi doonaa script tag ayanu furi doonaa oo script ah tagan markaanu furo waanu soo xiri doonaa si automatically asla ay xiri haduusan ku xirin adiga waad xiri doontaa marka JavaScript labadan tag dhexdooda ayaa lagu qori doonaa script tag ayaa furi doontaa kadib script tag ayaa soo xiri doontaa statementiga aad u baahan tahay ayaa waxaad gashan doontaa halkan inta waxaad gashan doontaa statement intaan ayaa waxay qori doontaa waliis ma baahanta sidoo kale waxaad awood u leedahay inaad abuurtid external file markaad abuurtid kadib aad ku soo xirtid JavaScript file ay intuu doonaa abuuro doonaa file soo abuurno JavaScript markaan soo abuurno JavaScript waxaan tigi doonaa HTML waxaan ku xiri doonaa JavaScript waa kana sidaan isku xirnay waxaan dhigi doontaa script cr source sidoo kale file name ka aad soo baxsatay file kan magaciisa aad geli doontaa script ay soo xiri doontaa hadda marka waan isku xiran yihiin inaad inta ku isticmaashid JavaScript inaad ku isticmaasho labada awood u leedahay hadda waxaan ku hormar doonaa marka hore kan qaab qoraad ku qorato waan aragno JavaScript waxaan soo daabici doonaa marka horeeto hello world JavaScript waxa wax loo soo daabici karaa afar nooc oo kala duwan aynu salaadna afartu nooc wax loo soo daabaco JavaScript waxay awood u leedahay inaad u soo daabacadid afarta nooc oo kala duwan waxa soo daabacanaysid ama output ama print isku mid waxa markaad wax soo bandhigaysid waxaad wax ku soo bandhigi kartaa inaad HTML elements inaad wax ku soo bandhigtid awood u leedahay sidoo kale document write oo HTML inaad wax ku soo bandhigtid awood baad u leedahay sidoo kale window alert inaad alert ku soo booda wax ku soo daabactid awood baad u leedahay iyo console waan arki doonaa waan kan hadda isticmaal doonaa marka afartaana wax soo daabici doontaa hadda waxaynu ku hormari doonaa console ayaan wax soo daabici doonaa waxaanu dhihi doonaa console.log kadib waxaan la soo daabici doonaa hello world aan soo garay doonaa sidoo kale refresh ayaan dhihi doonaa sidoo jeedada hadda waxaanu soo daabacnay hello world waxaanu wax ku soo daabacnay console waxaanu wax ku soo daabici doonaa alert kadib waxaanu dhihi doonaa hello world soo jeedib waxaanu filaynaa inuu soo boodo box markaas hello world waxaanu suurto geliyay waxay tahay alert ayaan isku dhihi doonaa sidoo kale waxaanu rabnaa inaan ku soo daabacno inner HTML kaas qoraalkaas nagu qoran dhexdiisa ayaan rabnaa inaan qoraalka ku soo qorno qoraalkaas ka bedelno waxaan dhihi doonaa document markaan dhahno document.get element id ayaan u baas garay doonaa id ayaan u baas garay doonaa waa inaan hore u soo sameeynaa id hadda su'aalahan inta ayaan ku sameey doonaa ogow id meeshaas iyo qoraalka qor laga bedeli doonaa qiimo kale lagu qori doonaa hadda waxaan dhihi doonaa id id1 oo kale id1 dadkana si aynu soo koobi garay intuu keen double quotation dib id u baas garay maxay rabnaa inaan qoraalka soo daabacno inner HTML dhexdiisa aan ku soo daabacno maxaynu ku soo daabacanaynaa hello world kadib inoo soo garay markaan refresh dhahno qoraalkana baxay hello world ayaan u baahnaa markaas soo jeedin marka noocyadaas kala duwan wax soo daabici kartaa
waan isku diri doonaa hadda uma baahnin sidoo kale to refresh ayaan dhihi doonaa sida hore inuu soo ceshmay rabnaa kan ayaanu save garay doonaa horta marka hore to kadib refresh waxaynu gudbin doonaa variable waa container store data waa weel inoo kaydinayo qiimaha aynu dhiibana waa weel inoo kaydinayo xogta aynu dhiibano sidoo kale to variable ku wuxuu boos ka qabsadaa memory-ga xog ay ku kaydinayo xogtaas dib ay u isticmaali kartaa hadda variable sidee loo abuuraa saddex nooc variable loo abuuraa variable kow inaad u abuurtid let sidoo kale to inaad u abuurtid var sidoo kale inaad u abuurtid constant intaas buu u abuuri kartaa variables maxay kala yihiin saddexda nooc labada qorays waa isku mid sidoo kale to halka kan constant uu ka duwan yahay constant qiimaha u dhiibatid waa qiimo constant uu joogtaa oo isbedelin labada qiimahooda waa interchangeable oo bedeli kartaa halkana aad bedeli karin sidoo kale labada scope kali ay ku kala duwan yihiin si faahfaahsan aan arki doonaa marka hore to aan abuur doonaa variables inoo dheh comment inoo sar waxaan abuur doonaa marka hore let kadib variable name hadda waxaan u baxsan doonaa oo kaleeto course kadib equal variableska abuuri dintid waxay gudubin doonaan data type waxaa jiro marka horeeto aynu inta waxyar isku aragno data types noocyada ay leedahay data types waxaa kamid ah kow aynu soo dhahnay string sidoo kaleeto string ayaa kamid ah waxaa kaloo kamid ah num waxaa kaloo kamid ah float waxaa kaloo kamid ah boolean marka waxaynu abuuri doono variableskan abuuri doona qiimahan intaan mid kamid ayuu yeelan doonaa hadda waxaynu sii doonaa string double quotation dhihi doonaa kadib waxaynu sii doonaa coursekan waa javascript course nameka marka aad soo daabacanaysa marka waxaa usoo daabacan kartaa afartii nooc kala tusada console oo kale aynu kusoo daabacano .log kadib waxaynu soo daabacan doonaa courseskaas aynu run gareyno soo jeed hadda waxaan la soo daacay waa javascript waxa laga keenay variableskan sidoo kale waxaynu u abuuri doonaa nooc kale oo loo abuuri karo variableska waa var inaan dhahno name oo kale kadib magaca gildo yahay aamin isla magacan ayaanu soo daabacan karnaa com inaanu dhahno kadib waxaynu dhihi doonaa name inoo soo daabac waynu run garay doonaa yaxya axmed aamin ayaa lasoo daabacay sidoo kaleeto constant age oo kaleeto inaan u dhiibano qiimo anagoo dhihi doono constant age oo kaleeto ama year oo kale sanadka dhalatay year equal 2000 oo kale iska dheh 2000 markaanu dhahno qofkan qiimihiisan waa constant xil uu dhashay la bedeli doono hadda soo daabacno hadda constant oo kaleeto oo ah year waxaynu fili doonaa in la soo daabaco 2000 waxay faa'iidina u leedahay constant inaan u dhiibano qiimaha qofkan daada uu dhashay hadaynu helno waxaynu ogaa karnaa xilliga uu jiro tusaale ahaan waxaynu ku darsan doonaa variable kaleeto oo var aynu dhihi doono qofkan age daadiisa oo kaleeto daada uu jiro marka hore waa inaan intuu dhiibano waa kala hordhigna qaybtan waxaan dhihi doonaa age sidoo kaleeto year kan ayaan dhihi doonaa sanad hadda la joogo waa 2024 qofka marka inta uu jiro ayaan u dilayna soo saarno waxaynu dhihi doonaa 2024 oo ah year laga jaray sidoo kale age waxaa rabnaa inuu noo soo saaro qofkan waa 24 sano jir soo jeediba qofkan daadiisa waa 24 waxaynu dhahnay constant waxaynu ku kaydinay age oo ah 2000 qofkan dhashay sidoo kale taariikhda maanta la joogo 2024 waxaynu kala jarnay year laga jaray age waxay noo soo baxday qofka inuu yahay 24 jir marka waxaan filaynaa cashirkan wax yar dheereeyay oo aan ka cudur daaranayaa intaan aynu ku soo koobi doonaa hadduu alla idmo codku ma sida daawashada muuqaalkan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh